بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد ardayay waxaan ku jirnaa wixdadii shanaad waxaan ka maraynaa cashirkii shanaad muxuu yahay al-gharad gharad maxaa la yiraahdaa gharad wuxuu ka bedelan yahay caariya al-gharad caariya ayuu ka bedelan yahay oo suuga bedelan yahay caariyadu haday ahayd shay tabal caara ah oo bilaa lacag aad ku qaadatay manfaacadiisa aad ka soo faa'iideysanaysid ayntiisa aad soo celinaysid kan maaha kan waxa weey shay aad qardaysanaysid aad qaadanaysid manfaacadiisa ayntiisa aad soo celinaynin ayn kale oo cusub baad isiinaysaa hada fiiri ayn kale oo cusub baad isiinaysaa oo maxay tahay kiilo bariis baad iga qaadatay caruurtaad u soo karsatay waxaad igu tir walaalow kiilo bariis si caruurtaan u karsanaya birita gaariga imaanaya kiishka bariido ii saaran baan kiiladaadi ka siinaya kiiladaas siinaysaa way waa tan gaariga soo saaran tan aan isticmaashin teego waa teydii cunta calooshaada gashay tan aad soo wadid waa tu kale taa qardi baa waa inuu san ziyaado la socdo haduu ziyaado la socdo ribo noqonaya haduu ziyaado la socdo ribo noqonaya marka qardigan galayna insha Allah qardigana inta badan waxa isticmaalaan reer baadiyaha iyo reer tuulaha isticmaal reer guuraaga iyo reer tuulada isticmaalay magaalo qarda laga ma isticmaalo deen baa la doontaa magaalada مفهوم القرض قرض فان كلا يقوم القرض هو عقد بين الطرفين يقدم بموجبه المقرض مالا الى المستقرض على ان يرد له دون زياده او نقصان واسدا كل شيء وهشي استعمل لبا قفود oo ku soo bandhigaya inuu ka faa'iideysto kii wax qardaysanayay xoolo ila المستقرض oo kii kala kaga qardaysanayay على ان يرد له دون زياده او نقصان asoo aan soo celinaynin qardiga ziyaado la socdo ama ka yar intii inuu ka yariyana lama ogol inuu ka badiyana lama ogol intii aan ku siiyay kiiladii baa siinaysaa dalbadiyo ilaan kiila sokor walaalaysi ciyaalka iga qadacan waxa weey xog guriga ma yaalaan marka kiilada sokor siinaysa safarka markuu imaado kiiladiisa ku siinaya waa walaaltino tacaawun fiican حكم القرض حكم جسم حياه وفضل جسم حياه وقرض من العقود المستحبه وحكم دي عقود اللبنيه لما فيه من تيسير على الناس waxa ku sugan in la soo fududeeyo culeyska la iska dajiyo dadka la xiriis warifq bihim la sun xariisto wa qadaa li masalih ku kala gutaan wa man yaqrud an-nas qardan hasanan ba'ida 'an ar-riba yanalu rida Allah ta'ala qofkii qof u qardeeya qardadaas oo ka fog inay ziyaado ama nusqaan la socoto riba la socoto wuxuu ku naaloodaa uu ku farxa mar walba raali ahaanshaha rabbi ilaahay oo raali ka noqdan shay ka qaalisa ma jirto wa yakshafu anhu al-humum wa ala qaada hamiga مركت صار ولا قادا والكروب كربدا يوم القيامة مالنت يوم القيامة الدون كادد ولا كربدا كفيد آخر إلهي كربدا كافيد ياوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعير من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفسه الله عنه كربة من كرب يوم القيامة نكي إلهي إنكي كفيدا قف مسلمة أو كربيسن أو كربدا الدون كهيسا هل كربة كفيدا أو الدون بيدا كفيدا أو كفرحية إلهي إنه كفيدا مالنت يوم القيامة أو كربوين كتردا بدن كربوين كحمان تبدن كربوين كدبت بدن إيه كجرا المركتاس وكقاضية هذا تن الدون هل حباه واحد كبدلتها مدة آخرة أو كوينتا أركان الغرض أركان تسمية بس سدح أصيرات فيه قبل أفر بن وحمرين عارية هذا سدح وأمرنا معايا المتعاقدان لبدي وحشينيس وهو المقرض والمقترض كي وح قرديني كي لا قرديسني المعقود عليه حوي وهو المال المقترض وحولي لك لا قرديسني الصيغه معوي وهي الايجاب والقبول اي قردي اي وانكو قردي شروط القرض شروط سمحتها وافرتان فيرسو ان يكون المتعاقدان بالغين عاقلين labada qof wax kala qardaysanaysa waa in kuwa qaangaar yihiin aqal leeyahay an yatawaafaqa al-iijab wal qabuul bayna al-muta'aqidin wa in ku waafaqaan iijab iyo qabuulka is waafaqaan walaalo waa ku qarday iyo waa ka qardaystay bayna al-muta'aqidin ay qabuul isku noqdaan way labada is ogolaadaan saddex an yakuna al-gharad muhaddadan wa ma'luman lil-muqrid wal-muqtarid waa inuu qarad wax la kala qardaysan noqonayaan wax waqti xadidan leh lana garanayo qofkii wax qardaystay kii laga qardaystay waa inay garanayaan kii la adiga qardaystay
بربا إي كينيسا وح لا قرني وينويا أفر الله يشترط المقترض إعادة القرض مع الزيادة عليه قفكي وح قرديني وإنه صن شرط كغني قفك وح قرديني إنه بريتو 2 كيلو ugu soo daro oo kaale hadii anigu qarda ay siiso 3 kiilo bariis ay siiso oo bir raashin badan ii imaado ku ogahay aqay inay wax ku oolin 3 qarda 3 qarda soo raacay soo ziyaada ma ha saas waa ribo laakiin waxa la doonaya hal fudud 3 kiilana waa tii qardada walaalo qaado 5 kiilana ana ciyaalkayga siistay waa kala magac wax isku jira ma laakiin 8 hadda isku soo qaado isku jiro tirada inta aan ku kala daadlaa hada ziyaada soo raacay ribo way xaraam bay noqotay baashi ha xaaraantamayn marka kala saar 3 nooc hada waa 3dii walaalo 5 hee ana ku deeqay ha التقويم سؤاله ما معنى الغرض؟ غرض معني سمحوية ما حكم الغرض؟ غرض حكم كيس سمحوية اذكر دليل على مشروعية الغرض من السنة النبوية ها غرض الشيخ مشروعية كيس سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كافر ناس بين أركان القرض عدي تيرك غرضك اذكر شروط القرض شروط القرض كان الشيخ 10 كعقود قولين الوحوية هي وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أرضي 10 كيغا مانت انت اسكو دنيahay waxaan bilaabaynaa insha Allah is arag dambe oo xiiso subscribe وبالله التوفيق